السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين حمراء وحوية وحيدنكو سلاميسا سلام قلبي تقلبي سلامة إسلام كقيمها بدن مرلبات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد جد ولاشين حمراء ما أنت محي إذين هيسا ويان maanta waxaan idiin hayaa geed cajiib geed barakaysan oo la yiraahdo olive tree. mirihiisa olive seedka ayaa waxaan rabaa inaan maanta faa'iidadiisa idiin sheego iyo nimcada uu leeyahay iyo vitaminiska ku jira iyo anfaca laga helo olive seedka. geedkaas waa geed barakaysan, waxaa diinteena lagu sheegay, kutubtay ku qoran tahay. kutubta waxay ku qoran tahay maxaan ku raahdaa ilaahay soo dejiyay oo dhan, tawreed iyo injiil iyo furqaan kulli way ku qoran tahay. olive treeska dadka runtii religioska oo dhanna way beertaan. marka waa geed barakaysan, waa geed quraanka ku qoran oo quraanka wixii ku qoranba faa'iido wanaagsan bay leeyihiin. waa geedo cajiib marka maanta waxaan ka hadlayaa olive seedka. waxa weeye oliveda waxay leedahay vitamiinka laga helo waxa weeye oo ku jira calcium. sida caanaha ayaa waxay leedahay calcium, waxay leedahay mineral, waxay leedahay sodium, waxay leedahay oo ku jira vitamin E, waxay leedahay iron ayaa ku jira, copper ayaa ku jira, fiber ay leedahay. waxa weeye fat malaha, waa zero fatkeeda, lagama qaadayo cholesterol. waa geed aada u fiican. waxaa ku jira oo kale protein, carbs ayaa ku jira, waxaa ku jira calories, waxaa ku jira water ayaa ku jira. intaas oo vitamin ayaa ku jira, marka ciyaar ma aha. waxaan sheegi doonaa markaa waxyaabaha ay u fiican tahay. waxay u fiican tahay runtii maskaxday u fiican tahay. waxay u fiican tahay maxaan ku irahdaa xanuunada maskaxday healthy u tahay. sida xanuunka la yiraahdo depressionka ama stresska ayay u fiican tahay. waxaa ku jira sodium ayaa ku jira. waxaa ku jira oo kale salt water ayaa ku jira oo ilkaha u fiican. waxay u fiican tahay ilkahay u fiican tahay. waxaa ku jira runtii waxaa kaloo u fiican tahay sonkorta ayay u fiican tahay. waxay u fiican tahay caloosha ayay u fiican tahay, oo musqusha galaysaa haddii aad cuntid olive seedka ama oliveda saliideeda. haddaad wax ku cunto waxaad galaysaa suuliga, waad fariisanaysaa. marka caloosha u fiican tahay. runtii bini-aadankana cudur oo dhan waa caloosha, waata soomaalidu tiraahdo, waana run. calooshaad hadday fariisato waxna aad cunaysid, waxaa kugu fariisanaya wixii qashin ahaa oo dhan, oo qashin saarki ma jiro, jirki kama baxayo qashinki. calooshi hadday ku fariisato dhibteeday leedahay, bacteriyaal ka dhalan kara xataa. marka calooshay u fiican tahay, sonkortay u fiican tahay. waa antioxidant. ortobrosidkay u fiican tahay. lafa xanuunka dadka qaba
arthritis-kay u fiican tahay isagana jointyada dadka laga hayo iyo kala goysyada ayay u fiican tahay. waxay protect u tahay kansarka ayay protect u tahay oo jirka ay ka difaacdaa cudurka kansarka la yiraahdo xun ilaahay naguma keenay ayay jirka ka difaacdaa. haddii aad isticmaasho waxaa weeye diet bay leedahay waa lagu caatoobaa. haddaad rabto inaad caatowdid ama gym aad ku jirtid waa inaad isticmaashaa olive oilka ama olive seedka aad cuntaa. waxay leedahay oo kale diseaska wadnaha ayay hoos u dhigtaa riskiga heart diseaska ayay protect u tahay hoos uma dhigtay sorry ayay protect u tahay oo reduce dhahdaa. waxay u fiican tahay cudurka dhiig karka high blood pressure-ka ayay u fiican tahay oo ay low ka dhigtaa ama hoos u dhigtaa. waxaa weeye geed aada u fiican runtii. waxay dhiig karka xataa protecti u tahay way ka hortagtaa. waa idiin sheegay kansarka way u fiican tahay oo waxay u tahay protecti way ka hortagtaa way celisaa. marka geedkan olive treega la yiraahdo waa inaanu beeranaa. waa anigii videoga bilowgiisa idinku soo sheegay waa geed dadka religioska leh oo dhan dadka diimaha leh oo dhan ay jecel yihiin oo ay beertaan balse dadkii kale oo dhanna ay fahmeen anficiisa iyo vitaminiska ku jira iyo geedkan inuu barakeysan yahay. runtii waxaa weeye iyo faa'iidooyinka laga helo markii ay ogaadeen iyo cimriga dheer uu gaaro. waxaa weeye 3,000 2,000 1,000 sano ayuu gaara. waa geed cimri dheer gaaro weeye. marka geedkaas waxa u badan yahay wadamada uu ka baxo waxaa weeye runtii Masar waa laga beeray wuu ka baxaa. oil badan ay kasoo saaraan wuu u baxaa wadanka Egypt Masar wuxuu u baxaa Falastiin oo caan ku ah. wuxuu ka baxaa oo kale wadamada carabta badankooda wuu ka baxaa. wuxuu u baxaa xataa Morocco Maghrib wadamadaas wuu ka baxaa. Yurub wuu ka baxaa. wuxuu ka baxaa Yurub oo fiirsada waa wadamada kirishtada katoliga la dhaho aaminsan oo aada uga adag ayuu u baxaa oo beerta maadaama kutubta uu ku qoran yahay halkaasay ka heleen wayna beertaan anficiisana way arkeen. wadanka sida wadanka Talyaaniga iyo wadankan kale ee Spain wuu ka baxaa. dabcan wadankan kale ee Mareykanka ee qaybta kulul ee California aad baa looga beeray olive treeska. olive trees badan ayay beereen oo usoo baxay. waxay beerteen xataa even California wadamada kulul ee saxaraha u ekaha ah ama dhulka iyaga buuraleyda ah iyo dhulka carabta la climate-ka ah waxay kaloo beerteen timir ka waran timirtii beerteen. waxa weeye gaaladan wax ka baxsanaya ma jirto. wax walba waa kaaga horeeyaan waa kaaga hormarayaan. way beerteen timirtina California timirta aad iyo aad iyo aad bay uga baxdaa. marka geedaha runtii anfaca leh oo dhan way beertaan. waxay beertaan oo kale xataa geedkii rumaanka aan kasoo hadlay hadda ka hor wuu ku jiraa fideogeyga dib u raaca anfaca laga hela iyo faa'iidooyinka iyo vitaminiska ku jira. geedkaas xataa way beerteen wadamada Yurub California aad buu uga baxaa isagana. waxaa dhirta carabta ka baxaysay oo dhan gobolkan California waa laga beeray aad baa looga beeray. rumaanka timirta olive treeska kulli waa laga beertay. marka waxaa weeye dhulkeena Soomaaliyana dhulka buuraleyda ah oo saxaro u ekaha ah oo dhulka carabta la climate-ka ah ama
la u eg oo la dhulka u eg ah sida dhulkan Puntland iyo Somaliland waa laga beeri karaa geedka olive treeska iyo timirta iyo rumaankaba intaasba qani bay ku noqon karaan waa laga beeran karaa si wanaagsan bayna uga soo baxayaan runtii marka waa in lagu beero waxaan arkay kali ah hal nin waa idin sheeg waxaan jeclahay aniga dhirta iyo waxaan jeclahay iyo inaan dhulka iyo maxaan ku raahdaa waxyaabahaas oo dhan aan daawado iyo beeraha iyo ayaan jeclahay marka arki kala jarka dadka jecel baan ku jira aad u qiimeeyaan ku jira aad uga soo horjeeda dhirta la jaraan ku jira in wax la beerto dadka jecel baan ku jira in la horumara dadka jecel baan ku jira in gaajada laga baxo oo Soomaali gaajada ka baxdo dadka rabo oo jecel oo dadka ku guubaabiyo dadka ayaan ku jira ma aha inaan YouTube kaliya ka hadlo dad badan dhulkii markaan tago aad baan ugala hadlaa dadka waan ku guubaabiya inay wax beertaan in aanay dhirta jarin in ay la dagaalamaan cid kastoo dhirta jarta inay iska qabtaan inay dacweeyaan inay dowladaha u sheegaan iyo maamulada meesha ka jira ayaan u sheegaa marka waxaan ahay dadka culture-ka jecel waxaa weeye runtii waxaan ku guubaabiyaa dadka inay wax beertaan marka dadka Soomaaliyeed waxaan ku guubaabinayaa in ay beertaan geed kasta in ay dhulkayga geeyaan geed walba in ay dhulkayga geeyaan maxaan ku raahdaa miro kasta in ay dhulkayga geeyaan maxaan ku raahdaa nimco kasta iyo cunno kasta waa inaanu beerano waa inaanu ka baxnaa food slavery-ga waa inaanu wax beeranaa waa inaanu xoogeena maalaa wadankayaga dhalinyaraa u badan dhalinyaro xoogiina hala dhimanine xoogiina maala xoogiina wax kula soo baxa garweynta qaata yaambada qaata dhulka qoda sabarada qaata qoda dhulka beerta wax yaan la idinku gumaysan adinkoo dhul leh oo cimilo wanaagsan leh oo biyo haysta oo dhulkiinu dihan yahay oo maxaan ku raahdaa dhulkiina oo fertilized uu yahay yaan la idinku gumaysan food kiimika laga buuxiyo inta la idin keeno marka waan salaamayaa waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed horumar aan u kacno waxaan idin leeyahay share comment subscribe thumb up please bye